بسم الله الرحمن الرحيم برنامج كان داوديال waxaan idinkugu soo gudbinaynaa war degdeg ah oo hadda dhanka Iiraan ka soo baxay. Iiraan ayaa waxay sheegaysaa inay gacanta ku dhigtay askar Amerikaan ah. Haddaba warkan yaa sheegay maxayse Iiraan arrintani ku macnaynaysaa? Sidoo kale Mareykanka ma jiraan wax war ah oo ka soo baxay oo la xiriira askartan Iiraan ay sheegtay inay gacanta ku hayso oo Amerikaan ah. Arrintan ma la oran karaa wejiga dagaalka ayay wax ka bedelaysaa? waxay arrintani ku soo aaday isla caawa iyadoo gobolka Delaware waddankaasi Mareykanka laga dejiyay 6 askari oo Mareykan ah oo ku dhintay dagaalkan duqeyn ka dhacday magaalada Kuwait ee waddankaasi Kuwait. Arrintan culays weyn ayay ku tahay madaxweynaha waddanka Mareykanka. Haddaba wararkan iyo wararkii ugu dambeeyay ee amuurtan ayaan barnaamijkan si kooban idinkugu soo gudbinaynaa. haddii aad degan tahay dalka UK oo aad doonayso inaad lacag dirto waxaan ku hayaa fursad dahabi ah si fudud ula soo deg abka Somrimit adigoo isticmaalaya taleefankaaga tabletkaaga ama kombiyuutarkaaga Somrimit oo ah xawaalada ugu raqiisan ee lacag dirista waxay kaa caawinaysaa inaad lacag u dirto ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqada hadda kala soo deg abka Somrimit Google Play ama App Store-ka Somrimit amaano iyo adeeg hufan soo dhawaada mar kale daawadayaal si aad ula socoto una hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waadna ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka intaanan idiin soo gudbin warkan weyn oo ay suurtagal tahay in uu wax ka bedelo dagaalkan imika socda iyo hanjabaadaha iyo goodiska ka soo yeeraya madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxaan ku hormaraynaa duqeymo culus ayaa gordhowt waxaa lagu qaaday magaalada Dahraan iyo agagaarkeeda waa caasimadda waddanka Iiraan. Arrintan ayaa waxaa la sheegayaa inay ku soo aadayso iyadoo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump saacado ka hor uu sheegay duqeymo ballaaran inay ku soo fool leeyihiin Iiraan isla markaasna hanjabaado culus uu jeedinayo. Sawirka halkan idinkaga muuqda waa xarunta sifaynta batroolka ee ku dhow magaalada Dahraan. waxaana lagu soo waramayaa in dab xoog leh uu imika ka socdo. waxaa la sheegayaa dabka inuu yahay dab aad u weyn. xaruntan waxay ahayd mid ka mid ah xarumaha ugu waaweyn ee sifaynta batroolka ee waddanka Iiraan. waxaa kaloo la sheegayaa xarumo waaweyn oo kaydka shidaalka ah in diyaaradaha dagaalka iyo Mareykankuba ay duqeymo culus ku qaadeen. arrintan waxaa la sheegayaa Iiraan inay wacad ku martay inay si adag uga jawaabi doonto. Iiraaniyiintu waxay sheegayaan haddii la duqeeyo xarumaha shidaalka in ayaguna ay duqeyn doonaan xarumaha shidaalka. haddii la duqeeyo goobaha rayidka in ayaguna ay duqeyn doonaan goobaha rayidka. waxay kaloo leeyihiin haddii la isku dayo xitaa warshadaha waaweyn ee biyaha lagu sifeeyo in ayaguna sidaasi oo kale weeraradaasi ay qaadi doonaan. arrintan waxay ku soo aadaysaa iyadoo dagaalku uu cuslaanayo. warkan marka laga tago war weyn ayaa soo socda caawa oo dhanka Iiraan ka soo baxay. laakiin waxaynu ka hormaraynaa oo kale gobolka Delaware waddankaasi Mareykanka waxaa gordhowto laga dejiyay meydka askartii Mareykanka ahayd ee colaadan ku geeriyootay. 6 askari oo lagu dilay duqeyn ka dhacday waddanka Kuwait ayaa caawa la geeyay waddanka Mareykanka. halkan waxaa idinkaga muuqda madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ku-xigeenkiisa JD Vance iyo marwada koowaad ee waddanka Mareykanka Melania Trump oo salaan sharaf siinaya in askartii laga soo dejiyay garoonkan. waxaana la sheegay arrinta inay ahayd arrin ku ah madaxweynaha Mareykanka dharbaaxa aad u culus bacdama askartan ay noolaayeen 10 beri ka hor. laakiin waxa la leeyahay waxay u dhinteen oo dadka Mareykanka caawa baraha bulshada iyo falcelinta raadiyaasha iyo telefishinada laga sii deynaya ay tilmaamayaan inay leeyihiin askartan waxay u geeriyoodeen Israa'iil awgeed. askarta waa 6 askari waxaa la sheegay in gantaal ku dhacay saldhigooda military oo ku yaala dalkaasi Kuwait in lagu dilay maalmihii ugu horreeyay ee colaadda. waxaana la sheegayaa in arrintan ay tahay arrin aad iyo aad u culus. haddaba arrintaa marka laga tago war weyn ayaa caawa soo kordhay. weli waxaad moodaa Iiraaniyiinta inay ku soo aadiyeen xilligii askartan laga dejiyay waddanka Mareykanka oo madaxweyne Donald Trump ku sugnaa garoonkii laga soo dejinayay. warkan waa war aad u culus. xogayaha
golaha amniga qaranka ee waddanka Iiraan Cali Larijani ayaa goor dhawata wuxuu shaaca ka qaaday Iiraan in ay gacanta ku hayso askar Amerikaana. Cali Larijani waxaa la aaminsan yahay inuu yahay ninka gacanta ku haya oo maamulaya iskuna dibridaya dagaalka iminka Mareykanka iyo Israa'iil lagaga soo horjeeda ee Iiraan ay wado. Waa nin uu aad ugu kalsoonaa hogaamiyihii hore ee waddankaasi Iiraan Ayatollah Cali Khamenei. haddaba warar goor dhawata ka soo baxay waddanka Iiraan ayaa Cali Larijani waxa uu ku sheegay in ay gacanta ku hayaan askar Amerikaan ah. wuxuu leeyahay askartan waa askar Amerikaan ah, laakiin wuxuu diiday inuu ka sheego wax dhaafsiisan intaas tiradooda, sida loo qabtay iyo goobta lagu qabtay. waxaana la sheegayaa arrintan inay tahay arrin weyn haddii Iiraan ay soo bandhigto askar nool oo Amerikaan ah oo ay hayso. waxaa leeyahay markaasi banaanbaxyada ka bilowda waddanka Mareykanka waxay noqon doonaan kuwa dagaalkan go'aamiya oo natiijada dagaalkana dhinac u rida. maxaa yeelay maalmihii ugu horreeyey dagaalkana askar baa la dilay, saldhigyada Mareykanka ayaa la duqeeyey. waxaa kaloo xitaa ka mid ah waxyaalaha cajiibka ee dhacay xarumihii raadaarada ee Mareykanka ayaa la duqeeyey. mid ka mid ah wuxuu ku yaal waddanka Qatar, waxaana la sheegay qiimihiisa inuu ku fadhiyo ilaa iyo $1 bilyan lacag ka badan. saldhigyada la burburiyey, safaaradaha la burburiyey iyo danaha Mareykanka dhibaatada ka qabsatay waxay noqon kartaa baa leeyahay arrintan arrin uga sii darta bacdama hal askari haddii xitaa laga qabsado sumcad darro ay ku tahay Mareykanka. waxay kaloo arrintan ku soo aadaysaa iyadoo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump caawa mar kale uu yiri anaa go'aamin doona cidda Iiraan hogaaminaysa. waxaan u samayn doonaa buu yiri madaxweyne ama hogaamiye Israa'iil iyo Mareykanka saaxiib la ah oo u wanaagsan, isla markaasna dagaal dambe aan ugu qasbin inaan galno. arrimaha cajiibka oo kale oo ka hadlay waxaa ka mid ahaa Donald Trump Ingiriiska ayuu si xun ugu qaadqaaday. wuxuu yiri waxaan hadda maqlayaa ra'iisul wasaaraha Britain Keir Starmer inuu doonayo inuu maraakiib dagaal u soo diro gobolka Bariga Dhexe. wuxuu yiri wax taageera ugama baahnin, mar aan dagaalkii ku guulaysanay ayay doonayaan buu yiri inay dagaalka soo galaan, laakiin ma u baahnin. laakiin madaxweynaha Mareykanka hadalkan uu sheegayo dagaalkan ku guulaysanay uu leeyahay hadal jira ma ah. Iiraan sidii bay u dagaalamaysaa, sidii bay u garaacaysaa saldhigyada Mareykanka gobolka iyo Israa'iil sida khubarada ay sheegayso. waaye intaa marka laga tago arrinta ku aadan ciidanka Iiraan ay sheegatay inay gacanta ku dhigtay ayaa war hadda uu ka soo kordhay. haddaba aynu eegno warkan oo dhanka Mareykanka ka yimid. taliska dhexe ee ciidanka Mareykanka CENTCOM ayaa waxay hadda sheegeen in aysan waxba ka jirin wararka ka imaanaya dhanka Iiraan oo ku aadan in ay gacanta ku dhigeen askar Amerikaan ah. gabar afayeen ah oo taliska CENTCOM ka tirsan ayaa waxay la hadashay goor dhawata telefishinka Al Jazeera, waxaana ay tiri warkan waa war been abuur ah oo aysan waxba ka jirin. laakiin arrinta la yaab kale waxa weeye hadalkan dhanka Iiraan ma ahan warbaahinta oo keliya, ma ahan afayeenada iyo saraakiil military. warkan waxaa sheegaya Cali Larijani. Cali Larijani waa mas-uul sare weeye, waa ragga imika majaraha u haya Iiraan. weli waxaa la aaminsan yahay inuu yahay nin ka awood badan madaxweynaha imika Iiraan ka taliya Mas'uud Pezeshkian. marka waxay khubaradu leedahay warkan ninkan uu sheegay waxba ka jira, laakiin waynu arki doonaa cadeymaha uu soo gudbiyo iyo waxa arrintaasi ka jira. laakiin Mareykanku waxay leeyihiin arrintaasi waxba kama jiraan. haddaba markaa wixii wararkan ku soo kordha barnaamijyadeena dambe ayaan idinkugu soo gudbinaynaa haddii alla idmo. inta ayaan kusoo gabagabeynayaa warkan kooban oo soo dhacay oo la xiriira in Iiraan ay sheegayso inay gacanta ku dhigtay askar Mareykan ah, laakiin taliska dhexe ciidanka Mareykanka warkan waa uu beeniyey daqiiqada ka hor. wixii warar ku soo kordha arrimahana barnaamijyadeena dambe ayaan idinkugu soo gudbinaynaa haddii alla idmo. waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka. si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino, haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horey aadan ugu xirnayn, hadda ku soo biir. waadna ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka. nabadgelyo.
hambalyo waa perfect moroccan soap quruxdii bilayd iyo bilicdii jirkaan helay haddii aad baxayso cid kale booqanaysiyo markay bilan aroos tahay si laguugu bogo oo bilicdii dhalaalka ku qubayso oo badi perfect moroccan soap haddii aad ku sugan tahay dalka UK iyo Yurubta kaleba waxaa lagu keenay saabuunta perfect moroccan soap oo ah saabuun la isla qiray inay tahay tii sanadka waa mid organic ah halkii caag waxaa ku jira 1 kiilo waxa ay leedahay noocyada olive oil black caviar oo ah ukunta malayga argan oil oo caan ku ah dalka Morocco iyo olive and honey oo la isku daray haddii maqaarka wajigaaga aad isbedel ku aragto xaajiyaduna kaligeed nuura inay kuu noqoto aad doonayso quruxda gabadhaadana ay gabdhaha kale ku sheekaystaan ama wiilkaaga maqaarkiisu u ahaado mid u dabacsan sidii yaraantii waa perfect moroccan soap midda ugu habboon ee jirka intaasoo dhan ka haqabtiraysa haddii aad ku qubaysato perfect moroccan soap xataa uma baahnid saliid kreem ama wax kale iyada ayaa jirka ugu filan haddii aad leedahay ganacsi iyo online business intaba waa lagugu keenayaa halka aad ku sugan tahay qiimo macquul ah kala xiriir asli general trading iyo telefoonka shaashadda saaran adeegga maamuus ee shirkadda hormuud waa xirmooyin adiga kuu gaar ah oo ka kooban internet keliya ku hadal keliya ama internet iyo ku hadal wada jira naftaada ku maamuus xirmooyinka adeegga maamuus oo kaga shubo hadda xidig 212 afargees ku soo dhowow shirkadda qibla homes naqshad qaab wacan weeyo qibla ay farsamaysay ha ka qadina u kaalay guryaha qibla homes qibla homes waxay kugu diyaarisay Nairobi South Sea iyo Mombasa Niyali apartments iyo villas ka kooban 5 4 iyo 2 bedrooms oo duplex ah iyo sidoo kale 4 3 2 iyo 1 bedrooms oo caadi ah guryaha qaar waxa ay leeyihiin qolka shaqaalaha dhismayaasha qibla homes waa Turkish style casri ah waxaana loo dhammaystiray wax kasta oo guri casri ah u baahan yahay waxaana shirkaddu ay kugu baaqaysaa qiimo dhimis soconaysa muddo 5 bilood oo u dhiganta 150 maalmood wixii intaa dheer waxa aad la xiriirtaa maamulaha sare ee shirkadda Sheikh Liban Ali adigoo u sii maraya nambarka shaashadda saaran waa qibla homes iyo qiimo macquul ah